fiidiyowgani waxa uu ku dhamaystirayaa fiidiyowgii hore. Si aad u fahanto fiidiyowgan waxaan kugula talinayaa inaad ka daawato calaamadda kor ka soo muuqanaysa ee fallaadhu ay ku tusayso fiidiyowgan qaybtiisii hore. Waxaynu arkaynaa jeeka oo cunaya tufaax, laakiin waxa uu ka dhaawacmayaa ilkaha. Si xagga uu ku ooyi lahaa waxa uu ka helayaa midabka dhiigga afkiisa, waana uu qoslaya. Waxaynu arkaynaa Jake iyo Junior oo uu keenay Logan iskuulka, waxaana uu Jay la kulmay Olivier oo ka mid ah ardadii ku jeesi jirtay, laakiin markan waa uu raali gelinayaa. Waxa uuna ku marti qaaday habeenkii xaflad ay ku qabanayeen guriga. Lexi waxay la joogtay Junior iyadoo uu sheegtay inay doonayso inay ka aargusato waxay uu ku sameeyay xafladii hore. Waxaanay sii dhex lugaynayaan dugsiga, inagoo fahmaynay iyaguna doonayaan inay yimaadaan caawa xafladda. Waxaanay Lexi ku odhanaysaa Junior, caawa waxaan ku hayaa lama filaan. Jay waxa uu la kulmay dayfoon oo ahaa ardayga kaliya ee ixtiraama, isagoo uu sheegaya inuu iska ilaabo wixii ku dhacay aabihii, waxbarashadana uu awoodda saaro. Waxa soo muuqanaya shaqaaladan oo nadiifinaysa guriga. Waxa ka soo dacal muuqanaya Jake, waxaanay arkaysaa haweenaydii in ay maqan yihiin mindiyihii. Wayna baaraysaa, laakiin ugu dambeyn waxay ka helaysaa qasaalada suxuunta. Hase yeeshee Jake ayaa xagga dambe kaga yimi oo ku tuuray, waxa uuna ku raaxaysanayaa dhimashadeeda. Waxa guriga ku soo noqonaya Jay iyo Junior. Waxa uu Jay u soo kacayaa dhankaasii kitchenka si uu u daydaydo cunto uu cuno. Waxa uu u baahanayaa mindi. Marka uu mindida soo doonto, waxa uu arkayaa haweenaydii shaqaalaha ahayd oo si xun loo dilay. Markiiba waxay wacayaan askarta, waxayna ugu imanayaan sida ugu dhaqsaha badan. Haweenaydii dambi baadhaha ahayd ayaa waxay uga shakinaysaa dilka Jay. Maxaa yeelay meelaha uu badanaa Jay joogo ayaa waxay ka dhacaan dilalka noocan oo kale ah, laakiinse ma ay hayn caddayn buuxda oo ay ku soo xidho. Waxa ay weydiinaysaa Logan iyo xaaskiisa xidhiidhka ka dhexeeyay Jay iyo haweenayda shaqaalaha ah. Si waxa ay u sheegayaan inay aad u jecelayd, si wanaagsanna ay ula dhaqmi jirtay. Waxaanay u sheegtay haweenaydii in ay haweenayda shaqaalaha ahi ay ku siibatay mindiyaha, arrinkuna uu yahay shil. Waxa uuna Jay u tagay Jake oo kitaab akhrisanaya, isagoo weydiiyay inuu dilay shaqaalaha, laakiin waa uu inkirayaa, isagoo kala booday buugga kuna odhanaya, i dhagayso, anigiyo adiguba waxaynu nahay dilaa. Waxa aynanu dilnaa dadka dhimashada u qalmo oo kaliya, isagoo weliba u sheegay in uu Lexi dilaayo. Waa Jake laydin keenay fiidiyowga ha iska daawanin ee like iyo subscribe nagu caawiya. Habeenkii waxa uu Junior maqlayaa labadiisa waalid oo ka hadlaya, iyaga oo leh waxa laga yaabaa inuu dilay shaqaalaha. Maxaa yeelay waxa laga yaabaa inay saamaysay geerida aabihii oo isku bedelay dilaa. Laakiin waxa uu arkayaa Junior Jake oo dabadda taagan, hase yeeshee wax ahamiyada muu siinin hadalkooda oo waxa uu iska galay musqusha. Juniorna waxa uu daba maray qolkiisa, isagoo ku arkay laptopkiisa sawirada Lexi. Jake-na waxa uu ahaa mid la socda arrinkaas. Qofka laptopka sawirada Lexi galiyayna waxa uu ahaa Jake. Mucjiso. Marka uu Jake qolka ku soo noqday, waxa uu Junior u sheegayaa in uu saaxiibadiis Lexi ka fogaado. Marka uu dibadda uga soo baxay, waxa uu maqlayaa Jake oo hadlaya, isagoo u malaynaya inuu waashay. Waxaynu arkaynaa Lexi walaasheedii yarayd oo sawiraysa Jake. Maxaa yeelay waxa ay ka heshay xalqadii hore ee filimka. Waxaana u imaanaya waalidiinteeda iyagoo aad ugu farxaya sida wanaagsan ee ay wax u sawiraysay inantoodu. Waxaynu ogaanaynaa in haweenaydii dambi baadhaha ahayd ay tahay dayfoon hooyadii. Waxaanay ka waraysatay Jay iyo habdhaqankiisa marka uu iskuulka joogo, iyadoo doonaysa inay wuxuun ka ogaato. Laakiin waa uu soo baxayaa dhankaasii xafladda, isagoo weydiinaya Jake inuu xafladda imaanayo iyo in kale. Waxaynu ogaanaynaa inaanay kahayn inuu yimaado xafladda
Juniorna waxa uu ahaa mid u diyaar garoobay xafladda isagoo qabtayba dhankaasi xafladda. waxayna isku dayayaan waalidiinta inay Jake ogaadaan inuu doonayo xafladda iyo in kale, laakiinse waxa uu sheegayaa inaanu jeclayn. marka uu ku soo noqdo qolka waxa uu waayayaa Jake isagoo markiiba dib ugu soo noqonaya waalidiinta weydiinayana inuu Junior qaatay caruusadii iyo in kale. waxayna u sheegayaan inuu kaligii qabtay xafladda. waxa soo muuqanaya Jake oo xidhan wajigash kuna sii wajahan xafladda si uu u sii dilo Lexi. Jake-na waxa uu go'aansaday inuu yimaado xafladda si uu u badbaadiyo Lexi, laakiin waxay ku kulmeen saaxiibkii Dayfon isagoo la yaabaya. dhanka kale Jake waxa uu ahaa mid la ciyaaraya game inantii yarayd ee ay walaalaha ahaayeen Lexi, isagoo weydiinaya xagga ay joogto walaasheed, iyadoo u sheegaysa in ay la joogto saaxiibkeed Junior. waxa uu imaanayaa qolka ay joogaan isagoo hoos galaya sariirta iskuna dayaya in uu dilo, se waa uu ku guul daraysanaya. waxaana loo sheegayaa in ay bilaabantay xafladdii. waxaana Lexi xafladda ku dhex matalaysaa sidii uu Jay aabihii ku dhintay. Jayna waxa uu ahaa mid daawanaya isagoo ka cadhooday iskuna dayay inuu iskaga yimaado xafladda, se waxa ka raali gelinaya saaxiibkii Dayfon. waxa uu soo xasuusanayaa inuu Jake doonayo inuu dilo Lexi, waxaana uu ku noqonayaa xafladda isagoo ka soo gaadhay marka uu isku dayay inuu dilo Lexi, soona qaadanaya Jake. marka ay ka yimaadaan xafladda waxa uu Jake ku odhanayaa dadku badidooda waa ay kugu jeesjeesaan, waana waajib inay dhintaan, isagoo u dhiibaya mindi kuna odhanaya waxaad noqonaysaa dilaa ama mid la dilaayo. xalqadeena labaadna halkaasi ayay ku soo gabagaboobaysaa. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay channelka, subscribe noo saar, like taaduna waa noo muhiim.